السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت wanaagsan waan asxaabta qaaliga ah halkan waa Musamedia waxaan Maxamed Xasan mar kale muuqaalkeen maanta waxaan ku soo qaadanaynaa ama sii wadaynaa muuqaalkii aynu qaybta koowaad ama part 1 ka qaadanay kagana hadlaynay makbabarka ama ixtiraamka ama respectiga muuqaalkaasi ayaynu qaybtiisa labaad maanta qaadanaynaa waxaanu ka sii wadanaa halkii uu noogu joogay ee daawasho wanaagsan basawoj ikulnat yamiyamin saw qofka sinaanshaha dadka aaminsan seetina wand inan iyo inan habtaamina daha taajir iyo faqiir lijina awaaqi qof weyn iyo qof yar iyo qof weyn yatamarna yaltabara qof wax bartay iyo mid aan waxba baran wasad bamaalad ayaa palaaladim iyo wixii la midaba ma kala differentiate gareeyo ama ma kala saaro ama ma kala qaado ee dadku in ay siman yihiin ayuu aaminsan yahay basawoji kulnat yamiyamin saw basawoji kulnat sinaanshaha dadka ama dadku in ay siman yihiin yamiyamin saw qofka aaminsan seetina wand inan iyo inan habtaamina daha taajir iyo faqiir lijina awaaqi qof yar iyo qof weyn yatamarina yaltamara qof wax bartay iyo midaan waxba baran wasad iyo wixii la midaba bamaalad ayaa palaaladin ma kala differentiate gareeyo ama ma kala qaado ama ma kala saaro makbabar kabeetasab iyo jamaraal ixtiraamka ama respectigu kabeetasab iyo jamaraal guriga ama qoyska ama reerka ayuu ka bilaabmaa iyaandaandu iyo beetasab abaal bamatasasab manor allabad iyaandaandu iyo beetasab abaal xubin kasta ama member kasta ama qof kasta oo qoyska ama reerka ka mid ah bamatasasab waa inuu naxariis manor allabad uu ku noolaadaa iyaandaandu iyo beetasab abaal bamatasasab manor allabad xubin kasta ama shaqsi kasta ama member kasta oo qoyska ama reerka ka mid ah waa inuu naxariis ku noolaadaa laraasu indhaargilati mifallagaw nagar waxa uu jecel yahay in isaga loo sameeyo qofku laraasu isaga indhaargilati mifallagaw nagar waxa uu rabo in loo sameeyo laleelow maarag iyo gabawaal waa inuu dadka kalena isagu uu sameeyo qofku waxa uu jecel yahay in naftiisa loo sameeyo waa inuu waxa wax la mid isaguna uu bixiyo oo huro oo uu dadka u sameyn karayo lijooj caruurtu kibirin marka ay ixtiraam agayita u helaan siyaadhigu ee ay ku koraan agarini mudaqamu seegooj yoonaalu waxay noqonayaan muwaadiniin wadankooda anfacda ama wax u tartaa lijooj kibirin agayita siyaadhigu caruurtu marka ay ixtiraam iyo wanaag iyo kalgacal ay kusoo koraan ama kusoo barbaaraan agarin wadankooda ama wadankeena iyo mudaqamu seegooj yoonaalu waxay noqonayaan muwaadiniin wadankooda hadhow toole anfaca iyaguna marka ay koraan walaajo jaajawun waalidiintood wandhamow jaajawun walaalahood ehetoo jaajawun hablahay walaalaha yihiin samaroo jaajawunna qaraabadooda iyo gorbeetoo jaajawun gorbeedkooda ama jaararkooda sawoojin bamullu dadka oo dhan akbaaryo jihonaalu waxay noqonayaan kuwa ixtiraama walaajo jaajawun waalidiintood wandhamow jaajawun walaalahood ehetoo jaajawun hablahay walaalaha yihiin samaroo jaajawunna qaraabadooda iyo gorbeetoo jaajawun gorbeedkooda ama jaararkooda sawoojin bamullu dadka oo dhan akbaaryo jihonaalu waxay noqonayaan kuwa ixtiraama balatidaro jirsiba irsise kabaabaru balatidaro dadka xaasleyda ama dadka reerka leh ama labada qof ay wada joogtaa irsiba irsise kabaabaru midba midka kale marka uu ixtiraamo ee uu qadariyo lijoojajawun caruurtooduna inarsun bamakatal iyaga intay footprintkooda ama dariiqooda ama dhabahooda ka daba qaadaan maalkan beetasab reero wanaagsan limasartu iyo jilaalu ayay samayn karayaan ama hadhow toole ay dhisi karayaan iyaguna balatidaro jirsiba irsis kabaabaru balatidaro dadka balatidaarka ama dadka reeraha leh ama dadka qoysaska leh irsiba irsis kabaabaru midba midka kale marka uu ixtiraamo ama haddii uu ixtiraamo lijoojajow caruurtooduna inarsun bamakatal iyaga inta ay raacaan oo ay ku daydaan malkan beetasab limasartu iyo jilaalu ayay malkan beetasab reero wanaagsan ama qoysas wanaagsan limasartu iyo jilaalu ayay samayn karayaan qaybta xigta inta aynu ku kulmano sidaa iyo nabadgelyo